midaan aqbalayno maahano wallahi waa dhaartay aqbali mayno haddii waxyaalo kale jiraanna reality-ga ha laga hadlo wallahi aanan aqbalayn odayaasha iyo waxgaradka ugaasyada nabadoonnada salaadiinta suldaamada dhammaantood waxaan aada uga xunnahay oo wax lala yaabay ah awaluhu wixii ka dhacay maanta aqalka baarlamaanka oo aanan dastuur ahaan marka la yidhaahna aanan sax u arag waxay aan ka digaynana aada u moodo in meesha laga hurinayo taasoo ah khalad aada u weyn oo dalka iyo dadkaba in burbur lagu horseedo ay meesha ka muuqato taasna mid aan aqbalayno ama aqbali doono maahan aayadaha qur-aanka markii la furay oo laga furay meesha in guddoonkii baarlamaanka inta istaago oo yidhaahdo xukuumaddii waa dhacda dowladdiina waa la riday haddii saasu dowladdu u fududahay adiguna ka lugee guddoomiya meesha haddii waxba kuuma yaalaan dalka fawdaad gelisay colaadaad gelisay dhibaataad gelisay si sharcigana uma aragno waxaan leenahay oon ka digaynaa waxaan ka digaynaa in dalka iyo dadkaba xasiloonidooda lagu hayo inaan dastuurka la baalmarin constitution uu leeyahay dalku yaan la baalmarin inaan la baalmarin baan annagu aan leenahay oon ku adkaynaynaa weliba waxaan leenahay waxaa u dhiman dowladda waa 3 bilood in ra-iisul wasaarihii qaranka la yidhaahdo iyo dowladdiisi waa dhacday goormaa lasoo dhisaa dowlad waa laga qaadi karaa ra-isul wasaaraha xilka waa laga qaadi karaa laakiin waa goorma sharci ma tahay dastuuri ma tahay ma sharcigu gacantooda kuma jire dalka iskale waa wada naqaanaa dastuurkana waa wada naqaanaa sidaas darteed waxaan leenahay fawdada iyo maaragtay burburka iyo in xasilooni xumo dalka loo horseedo aan aqbalayno maahano wallahi waa dhaartay aqbali mayno haddii waxyaalo kale jiraanna reality-ga ha laga hadlo wallahi aanan aqbali mayno dalkana male 2 3 4 mayle soomaaliya iskale dalka aqbali mayno waa in si sharciya lagu wada shaqeeyo ama lagu kala tago dalkan dowladu kama jirto la yidhaahdo oo la wada baxa meesha laakiin aqbali mayno waxaan dastuurka ku ol oon constitutionka ku ol oon dalka iyo dadka aan dan u hayn war intaas ma qaadanay haddii la isgiriifo ummadda la isku garan waayo oo nin waliba dan gaara ilaashado gooni wax u doono gobonnimadii soomaaliyeed waxay ku dhici gorobtii ceebeede gudnimada walaan laga baxayn qooriya ayaane dadweynaha wixii laga gadi lahaa tale ku soo gooyo raggii asaas lahaa maanta waa kuwa leh baarlamaankii baa ishaystay oo dharbaxada iyo kuraasi la isla dhacaya markaan saa u dilayana saasay ahayd waxa weeye waxaan u sheegayaa baarlamaanka soomaaliyeed soomaalidu waxay ku maamaadaa umusha wixii u dala ilmaha u dala wixii shacabka u dala ma idinkana idiin dala joojiya fawdada maanta maalin khilaaf maaha madaxweyne cabdullaahi maxamed farmaajo taariikh hal mida taariikh ku lahay maantana cimri tagaad ceeb ku jisanta anigu ilaahay baan ka xabsanaya nina ka xabsan maayo madaxweynaha keliya aan weligii ra-iisul wasaarihiisa iskhilaafin baa 3 bilood ayaday ku hartay baad maanta la leeyahay waa la iskhilaaf waa maxay waa cimri tagay ceeb laguma jisano soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha nabad allah ka dhigo waxay ahaaday hididiilo muuqatay ummadda soomaaliyeedna rajadeedu soo celisay waxaan rabnaa halkii in laga sii wado doorashada soo socotoo la sugaa dowladda soomaaliya madaxdeeda iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka labadaba waxaan ka codsanaynaa doorashadu inaysan waqtigeeda dhaafin si waddanku oo xasiloonidiisu ay usii jirto qalalaasa siyaasadeed aanu u dhicin iska horimaad looga nabad galo sidaasaan maaragta ku talihaynaa annagoo ah dhaqankii soomaaliyeed odayaashii samadoonadii wanaagga kuwii jeclaay saasaanu ku talinaynaa waxaan ka digaynaa wax kasta oo u eg ama ah dheeraysi saad og tihiin ummadda soomaaliyeed dhibaatada ay ka soo kabaladahay oo ku daba dheeraatay
waxay ka raacday kursi la jeclaado kursi la jeclaado oo la laxwiyo oon laga degin dhibaatada soomaaliya aas-aaskeedu waa midaas wax kastoo ayada u eg marka anagu jeclaysamayno waana ka digayna haddaana odaasha soomaaliyeed arrintaasna waxaan u jeedinaynaa baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo xukuumadda iyo dhammaan federaalka inaan lagu hamin ama laysku dayin waxa la yidhaha dheeraysi taasna waa ka digaynaa ayadana waxayna keeni kartaa mushkilad ummaddan dib u celisa soona dhaweey mayna annagu haddaana odayaasha xamar soomaaliyeed nabadan ku naaloonay laba goora halkan dawlad lagu dhisay oo si sharaf lahoo qiimale isaga bedeshay tii oo kalean u fadhinaa annagu hiddidiilo fiican baa socotay laakiin maanta waxaa nagu yimid wax yar waxaa nagu yimid niyad jab aad u weyn baan meeshan ka qaadnaada runtaan idiin sheegaynaa baarlamaankow dalkii oo ciidamada kenya ay dhinac ka haystaan ood horey uga bixin weyseen ood muxuu aha ummad soomaaliya ay xasuuqayaan muxuu aha ganacsigeennii ay xasuuqayaan ateerooyinkii hormuud ay sidoo dante u galeen ee meel walba ay joogaan inaad maanta ayadoo 3 bilood dawladda ka hartay inaad fadqalalo aad bilowdaan oo ra-iisul wasaarihaa ridnay soomaaliya uma cunanto soomaaliya uma cunanto ayadaas barnaamijka isaga ah guddoomiye baarlamaanka waan ku ixtiraamaynaa soomaali baa tahay xuquuq baan leenahay xuquuq baan ku leenahay arrintaa ayada waxaan leenahay waa meel ka dhac weyn soomaaliya lagu sameeyey xuduudaheedii lagu sameeyey war xuduudihii sooma arkin buulaxaawa sooma arkin war hoosingooyo sooma arkin iyo muxuu ahaa badhaadhe iyo kulbiyo waxa shacabka lagu samaynayo war miyaadan horaan uga hadlay arrintaa ayada ah hadda maanta waxaad keenteenba inaad muxuu ahaa shay aad noo gumaysaan gumaysi baad na geliseen ku talagala baarlamaanka soomaaliya gumaysi baad geliseen ma aadan xoraynin awal horeba maxaad ku timaadeen muxuu ahaa xoog iyo xoolaad ku timaadeen muxuu ahaa dalley baad ahaydeen haddana waxaan leenahay nin iyo cod ayaa la dooranayaa ninkii shacabka soomaaliya ay soo doortaan ubaana xildhibaan noo noqonaya nana hogaaminaya runtii waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed fawdo wax macnaana kuma lahan sharciga iyo nidaamka iyo sistemka dawliga ayaana lagu kala adag yahaye lama kala xoog badna waxaan soo jeedinaynaa in dalkan arrimihiisa iyo masiirkiisa iyo wadatashigiisa iyo mas-uuliyaddiisa iyo dawladnimadiisa isla ogol in lagu dhammeeyo isla ogol in lagu dhammeeyo jidkaa in lagu socdo wixii intaas ka soo haray soomaali ayay runtii dib u celinayaan waana ka xunnahay waxaana soo gaaraya oo aan maqlayna maantay oo runtii aanan ku faraxsanayn oo ah ma garanaysaa qayladhaanta baarlamaanka ka dhex jirta ma soo dhawaynayno waxaan soo dhawaynaynaa wada ogol wada tashi isla ogolaasho